السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي كسور دواد channel كيغا وولاشي النعيمة قعم فرن يا قلبي فرن ما انتم حاني بدان عابتان ما شاء الله أو مركاد أفوريس هذا عابي كرتيد نفتك وقوجنا وحاوى فيتامينيان إن بعادي ما كل أصحابي عابتان رسين إهواي barafka kor ugu darsanay marka afur rabtid waad ka heli doontiin asxaabey soo dhawaada daawasho wacan bismillaah halkan waxaan ku haysanaa qudaartan ka samaysan cabitaanka waxaan baaquligaas ku soo shubtay passion waxaan kaloo haystaa limo orange iyo beetroot maasha Allah intaas ka kooban yahay cabitaankeena waxa waa cabitaan yar oo simple ah waa cabitaan vitamin C ah maasha Allah energy ku siinayo taraawixda marka ay soo ku asxaabey energy maanta dhan ka baxay ku soo celinayo nafta ku qaboojinayo xaraadka ka bixinayo maasha Allah asxaabey aad iyo aad ugu heli doontiin marka asxaabey waxaan sameynaynaa liinta waxaan ka fiiqaynaa qolofka waxaan rabaa inaan jarjarto oo shiito marka liinta marka shiidaysa lafaha gudaha iska bixi adii kale waxay ka noqonaysaa qaraar marka insha Allah waxa waa cabitaan oo natural ah waa cabitaan organic ah waa cabitaan oo maasha Allah oo aad iyo aad ugu heli doontiin insha Allah passionka iyo liinta aad iyo aad iskugu macaan badan tahay hadaa rabto waxa ku darsan kartaa qudaar alla qudaarta aad jeceshahay maxaa la dhahaa liinta marka waxaa samaysteen xilliga maqribka oo soo dhow yahay marmar qaraareed ka noqota liinta marka liintan hadaa isticmaaleen midda kale makiinada ha iskaga shiidin liinta caadiga liin bambeelmada isticmaalaysid makiinada ha iskaga shiidin qaraare ka noqon hadaa ku shiidaysin lafaha dhan ka bixi lafta dhan inaad ka saartaa waayo insha Allah cabitaankan wuxuu kaaga maarmanaysaa cabitaanaha oo dukaamanka loo gado la qasqasay budooyinka kuwaas gaasi qiyaan mar walba waxaa isku daydaa inaad hagaajistid ama familkaaga oo hagaajisid hadaa iskaabula tahana naftaada oo hagaajisid cabitaan oo natural ah insha Allah asxaabey sidaas aan ku soo dhameynayaa marka waan soo jarjaray liinteena passionka ku soo shubay garaafadii aan ku shiidi lahayn blenderka haystid aa ku shiidanaysaa marka passionka marka hore shiideena si fiican waxaan rabaa inay miraha dhan ay ku shiidmaan waayo cabitaanka dhanba mirahaas ku jiraan marka si fiican blenderka ugu shiid wax biyo hadda kuma darin aniga kaligiisaan shiidaa marka hore insha Allah waan soo shiiday asxaabey waa kaasa waxaan ka miireynaa qashinkaasina ka miirtid laazim waay hadii kale afku ka galgalaya asxaabey waatan liinteena oo soo jarjarnay hadeertaan waxaan rabaa inaan blender ku shubano makiinadaada biyo la'aan shiidayso ama food process haystid taas way fiican tahay laakiin blenderka caadiga waxay u baahan tahay wax yar oo biyo intiis lagu siiyo inii sheega cabitaankan ma rabno inay biyaha ka badato waxaan rabnaa cabitaan oo rasiin ah oo nafta ku qaboojinaysa ku dhaha asxaabey oo fitamiin ah oo dhiig ku soo celinayo marka waxaan ku shubay wax yariis oo biyo ah waxaan sameynaynaa hadda waan shiidanaynaa si fiican u shiid liinta dhan si ugu soo baxda maasha Allah biyadan waa miirinaynaa marabna biyo badan aan ku darsano marka insha Allah waxaan ka miireynaa qashinka dhan passionka iyo liinta aad iyo aad asxaabi iskugu macaan badan tahay liinta iyo carrot-ka xataa aad ay u fiican tahay waxa waa vitamin C waa asxaabey liinta aad iyo aad jirka ugu fiican tahay caruurta u miirta naftaada u miiro
bedelka fruit cabitaan la qasqasaayo qasaleed fruitka guriga ku miiro asxaabi insha Allah. Intaasna waxaa waa iga dhiirigelin ma aha ina ani kasaayo. Waxaan jeclaa leh asxaabteeda waxay gurigayga aan ka hagaajinaa inaan ila soo wadaago. Maasha Allah ku mahadsantiin support-kiina iyo daawashadiina iyo comment-kiina quruxda badan. Aad ayaan iiga mahadcelinayaa. Marka asxaabay waxaan ku daray wax yar oo biyo saad u arkayseen. Hadda waxaan ku darayaa qaando iyo bar sokor. Sokorta aday kugu xirantaa dhadhanka. Haddaa macaan zaad jeceshahay waa macaansan kartaa. Haddii kalena maxaa la sokorta iska yaree markaa sokortina iska yaree sidaa fiican. Passionka waxa sokorta ugu dareena passionka xoogaa dhanaan yariis markaa sokorta ku macaynayna. Maasha Allah saa u jeedin asxaabay. Cabitaankeena waxaa waa rasiina ku dhahay adooda markaa baraf ku dartid biyo kaama noqonayso. Marka insha Allah saanad ku wadeena waxaan shiidanaynaa qaybteena labaad. Asxaabay halkan waxaan ku soo jarjartay hal xabo oo beetroot haddaa rabto waad ka badsan kartaa adiga. Waxaan ku daraa wax yar oo biyo waxaa rabaa inaan ku soo shiido. beetroot-ka maasha Allah iron waaye dhiigga soo celinaysa. Marka asxaabay saas u soo shiidanayna. Waa kaas asxaabay beetroot-ka inuu soo shiiday waxaan iska miireynaa qashinka gurufta oo ku soo hirtay si fiican u soo shiiday. Maasha Allah waxaan u maleysaa ku dhaa dhiig beetroot-ka aad iyo aad u jirka ugu fiican yahay. Ciyaalka siista naftaada u cab. Cabitaanka markaa baraf ku dirtaa saa inii sheega biyo maniga noqonayo marka hore biyaha ku yareysay rasiina ka dhigtay. Maasha Allah asxaabay waa kaas kalarka dhan oo liinta iyo passion-kii bedeli beetroot-ka. Innaba caadi ma ku dhaa baraf xataa laazima inaad ku darastid. Inkastoo kulkuleel oo jiro waxaa fiican inaad cabitaan qabow cabtid oo naftaada ku qaboojinayo. Afura cabi kartaa, suxuurta cabi kartaa, taraawiix ma ka imaada cabi kartaa, wax gaas kuma kicinayo. Innaba caadi. Maasha Allah asxaabay cabitaankeena sidaan ku soo baxan ku dhaa innaba caadi ma aad u qurux badan tahay una macaan badan tahay waana seeko. Ma aha cabitaan oo biyo laga badiyay. Maasha Allah asxaabay haddaad ka hesho video-gan please like to noo saar haddaad nagu cusub tahay subscribe-ka noo taawo kadib gambaleelka riix saad u noqotid daawadaha koowaad ku soo dhawaaw channel-keena mar labaad iyo mar saddexaad. Asxaabay cajalkan comment ka soo bixi una share garee asxaabtaada kale si ay u ogaadaan channel-keena insha Allah kuma qasaari doontiin. Waa inay wada salaamo meel walba dunida daafada ka joogtiin. soo dhawaada asxaabay cabitaankeena afurka waa kana. Maasha Allah innaba caadi ma ku dhahay. Nafta u qaboojiyan ku dhahay cabitaan natural guriga ku hagaajiso. Inta video isku meen waxaan iga tagaa. Assalaamu calaykum.